isku tashi walaalnimo isu urxaanasho wada shaqayn midaasaana waxay tahay midda maanta Soomaalidu ay meel ku gaari karayso liibaanteeda adduunka iyo midda aakhira labadaba ay uga suurtoobi karayaan inaan midnimo ahaano inaan wada jirno inaan wada soconno inaan wada tashanno waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta waqti uga baahan yahay ma jirto waxaynu soo maray xilli aad u adag dagaal sokeeye uu jiray xaalado adag ayna soo maray waddankeena waxaa ilaahay mahadiya maanta waxaan ka soo gudubnay marxaladii qabiilka iyo la kala qoqobayay maanta cadowga aan leenahay ee ugu weyn waa shabaab oo u baahan inaan isaga dhulkeena ka horeyno oo dadkeena aan isu furno waxa soo raacay caqabad inuu noqon karaa waxay noqonaysaa maanta lama oran karayo qabiil lama oran karayo koox lama oran karayo cid kale waxayna soo raaca waxay noqonaysaa kaliya innaga oo ay naga timaado isku xidhnaan la'aan midnimo la'aan wada shaqayn la'aan iyo hoggaanka oo khalad inaga galo waayo waxa ugu fiican aan u baahanahay waxa weeyaan in la helo hoggaan saxan oo hoggaanku ay noqoto inuu qaato hoggaamintiisa isku wadkiisa isu keenista bulshada taasaa markaa waxay noqonaysaa midda ilaalinaysa innaga midnimadeenna iyo wada jirkeenna waayo waan ka soo gudubnay xilligii qabiilka maanta midnimada Soomaalidu waa muqaddas Soomaaliya Soomaali baa iska leh waxa isu keeni kara waa Soomaali waxa taladeena ka dhaxaysaana waa innaga shalay waxaynu ahayn 5 beelood waxaa la 4.5 waxaa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan beel lixaad iyo beel 7 Soomaaliya arrinteeda waxba kama qaban karayso waxa wax ka qaban kara oo tashan kara oo wax isweydiin kara oo wax isla sixi kara waa innaga waxay la tahay innagu aynu ka shaqayno midnimadeena iyo wada jirkeena amniga waa muqaddas lagama gorgortami karo inaan amniga ka shaqayno waa laba huraan haddaan amni weyno nolol ma jirayso aabbaha meesha fadhiya hooyada ka agoonka ka naafada ka shacabka ka ganacsadaha qof waliba wuxuu ku noolaan karaa inuu helo amni iyo kala dambeyn aan ka wada shaqayno amniga aan ugu tagno shabaabka iyo kuwa inala dagaalamaya meelaha ay degan yihiin waxaan rabnaa inaan kala shaqayno dowladaha deriska ah iyo ciidamada amisom iyo cid kasta oo amniga aan wax naga dhaxeeyaan inaan kala shaqayno amni inaan kala shaqayno deris wanaag inaan ka wada shaqayno sidaan u horumarin lahayn amniga isagana kaashan lahayn dagaalka shabaab ee ah urur caalami oo dagaalkiisu uu sidaa yahay iyagana aan doonayno inaan cid walba aan uga mahad celinno nagala shaqayso amniga annaguna aan doonayno insha Allah inaan inta u dambaysa kala sii shaqayn doono wada shaqaynta waxaan rabaa inaan idiin sheego furaxantiisa ma mooga khayrooduna waa iska badan tahay haddaan la wada shaqaynina qofna keligii waxa ma qaban karayo waxaan rabaa marka hore inaan codsado inta ay soo dooratay iyo inta odayaasha iyo inta reer Jubbaland inay igula shaqeeyaan waxay ii soo doorteen oo qof waliba uu igu caawiyo kii talaysiina oo tala naasaxay siiyo shaqada aan qabanayo taasi waxay keenaysaa markaa inaan kalsooni ku shaqeeyo ammaanadaadii dhibteena aan si fiican u guto waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii maamulaysay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maniin qolo gooni isu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa waxaan nahay dowlad goboleed xubin ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow u wada shaqayno ka wada tashanno danta ummadda ka wada tashanno saan hore ugu socon lahayn iyadoo aan cid noo dhaxayn inaan annagu wada shaqayno ka wada shaqayno waxaan leeyahay soo dhowaada madaxdayadii baa tihiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto
waxa inaga dhexdeena inaga jira inagu inoo yaalla instructionna meel kale lagama soo bixin karo cid kalena wax kale inooma yeelin karto waxaan diyaar u nahay inaan idiin aqoonsannahay mas-uuliyiintayadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodii baa joogeen insha allahu inay mar dhow yimaadaanoo dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalena shaqeeyaan lana wada shaqeeyo jubbaland waxay ku dhisan tahay laba xaalo iscafis isasaamax iyo wada shaqayn markii ugu horraysay dhisaynay waa la garanayaa buurihii la kala saaraa waxaan gaadhnay inaan qof walba ugu tagno ridda uu joogay ka soo saarno u yeedhno cafis ka dalabno sidaasaan ku dhisannay waayo meelaha kale oo dhan ee soomaaliya way yaro kooban yihiinoo inta badan markii la sheego calaamad qoysiya waxbaa lagu sheegaa iyo in yar laakiin tan qof kastoo soomaaliya dabciisa ku jira garanaya ka shaqaynaya waxaan rabaa inaan iscafino oo tasaamax aan samayno qof kasta oo wax naga tabanaya kuwa mucaarada waxaan diyaar u ah inaan la fadhiisanno la xaajoonno qancinno waxay ka hadlayaan aan kala hadlo waxaan rabaa kuwii aan soo wada shaqaynay iyo kuwa hadda bannaanka ka jooga wax tabanaya kulligood anugu waxaan rabaa inaan cafiyo cid kastaoo wax aanu qabo anna waxaan codsanayaa in la cafiyo qof kastaoo wax iga tirsanaya ay ugu horayso madaxda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweynuhu uu kowgeeya waxaan rabnaa inaan dhisno bays ama saldhig ama gogol wada tashi oo aan doonayno inay laga ambaqaado ay u noqoto halkani udubkii soomaalida isu keenisteeda isku duubnideeda wada tashigeeda iyo wanaaggeeda laga sii ambaqaadi lahaa haddii lahayda waxaan rabnaa in laga shaqeeyo sidii la isugu wadi lahaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo jubbaland ay u noqon lahayd hooyadii isu wadista iyo isu keenista iyo wada shaqaynta soomaalida waanan dhigaynaa gogasha haddii ilaahay yidhaahdo waxaana rajaynayaa inay midho dhasho aad baan idiin salaamayaa warkayga waxaan u dhigdigan doonaa khudbadaha dambe soo socda hadda waxay ahayd ujeeddadu mahadcelin iyo mahadnaq laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo soomaaliya soomaali baa iska leh